بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركله iyo kulan wanaagsan dhamaan ardayda iyo macallimiinta in sha Allah maanta waxaan halkan ku dhameystiri doonaa imtixaankii sanad dugsiyeedka 2020 ka qaybtii imtixaankii wasaaradda waxbarashada hore waxaan u soo qaadanay qaybtii koobaad ama part 1 oo ka soo shaqeynay multiple choices questions waxaan su'aalihii dooro jawaabta saxda ah maanta hadoo ilaah karaale noqdo inoo saamaxo waxaan halkan insha Allah taala aan kaga shaqeyn doonaa part 2 qaybta labaad ee imtixaanka oo ku koobnaa structured questions part 2 imtixaanka wuxuu ahaa structured questions ayuu ahaa oo macnaheedu uu yahay su'aalo oo structured ama su'aalo toos ah waayahay structured questions ka waxa lagu saxayay dhibco gaaraya ilaa iyo 60 dhibcood ayaa lagu saxayay qaybtii hore multiple choice wuxuu ahaa 40 dhibcood qaybtaana waa 60 dhibcood sidaas marka waxay ku noqonaysaa 100 qaybta marka structured question ka waxay isugu jiraan marka ilaa iyo 5 chapter ayuu ka kooban yahay qaybtan structured questions ka ama 60 dhibcood saaran wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 5 chapter ayuu ka kooban yahay qaybta kuwaad marka waa oscillator motion kaasoo lagu saxayo 13 dhibcood ayaa saaran chapterka labaad ama su'aalaha labaad waa refraction of light qalooxsanka ilayska asagana waxa saaran dhibco gaaray 18 dhibcood ayaa lagu saxayaa qaybta saddexaad ama su'aalaha saddexaad waa wave motion socod kirka oo asagana lagu saxayo 9 dhibcood su'aasha afraad ama su'aalaha afraad waa chapterka sound waves oo jabaqda codka mawjadaha jabaqda ama hirarka jabaqda kaasoo asagana lagu saxayo dhibco gaaray 10 dhibcood iyo su'aalaha shanaad oo dispersion of light oo firdhiska ilayska oo asagana lagu saxayo 10 dhibcood sidaas darteed waxay isku noqonayaan 60 dhibcood ayay ka kooban yihiin marka waa 5 chapter oo macnaha la soo xulay kaasoo u dhigma 60 dhibcood oo qayb kamid ah imtixaanka ayaan ka shaqeyn doona isla socod wanaagsan subscribe saar insha Allah taala hadii taa marka ugu horeyso aad soo booqanayso channelka una share garay una faa'iiday ardayda kale si ay maxaa la yiraahdaa ay wax un ay kaga faa'iidaan insha Allah su'aalihi ayaan gudagalaynaa questions 1 marka su'aalaha qaybta koowaad waxay quseeyaan chapterka oscillator motion oo lagu saxayo 13 dhibcood ayaa saaran chapterka kaligiisa su'aasha koowaad marka waxay tahay oo quseeya chapterka oscillator motion waa sahra ayaa oscillates waxay lushay ama waxay sameysay swingi baalka loo yaqaan wifow and makes waxay sameysay 100 complete cycle wareeg oo waxay sameysay 100 wareeg ayay sameysay in 20 seconds 20 second gudahooda waxay ku sameysay 100 waves ama waxa loo yaqaan 100 cycle ayay ku sameysay 100 wareeg ama wave ayay sameysay 20 second gudahooda haddaba su'aashan laga rabo waxay tahay marka number 2 waxaana la diray fine waxa soo raadaysaa period number 2 waxaa laga rabaa period kaasoo lagu saxayo 2 dhibcood su'aasha kaligeeda period waxay saaran tahay 2 dhibcood su'aal kasta waxaan ku soo qoray dhibcaha ama markska markaasi ay saaran yihiin ama lagu saxayo marka period maxaa lagu helaa marka waxa isticmaalaysaa qaacidadii lagu helayo periodka ee chapterka oscillator motion period waxa lagu helaa time taken waa time taken oo loo qeybshay number of oscillations waqtiga oo time ayaad waxaad u qaybinaysaa number of oscillations ama number of cycles ama number of waves hadba macna sida aad ku fahmi karto inta baa loo isticmaalaa marka su'aasha markaad u fiirsato waxaan la siiyay su'aasha dad dib ugu laabano waxaan la siiyay 100 oo waves ama cycle iyo waxaan haysanaa 20 second haddaba waa su'aasha marka waxay tahay periodka maxaan ku helaynaa periodka waxaan ku helaynaa time taken ayaan waxa u qaybinaynaa number of cycles time taken la siiyay waa 20 waxaan u qaybinaynaa 100kii oo cycles ama waveska sidaas darteed waxay noqonaysaa marka eber dhibic 2 oo second ama 0.2 oo second ayaa noqonaysaa periodka su'aasha labaad marka waxay tahay waxa soo raadaysaa frequency-ga lagu dhaadane soo saar frequency marka maxaan ku helaynaa frequency-ga waxaan ku helaynaa frequency waxa lagu helaa qaacidada number of cycles ama number of oscillation oo loo qeybiyay time taken waa cagsiga period waxa sameynaysaa qaacid ahaan number of oscillation ka kormarayo time taken ka soo maray marka waxay noqonaysaa 100 loo qeybiyay 20 waxa ku soo baxaysa 5 ama waxa dhigi kartaa marba hadii aad period ka soo saartay automatically frequency waxaad ku helaysaa hal loo qeybshay t oo period ka aad ku helaysaa
hal ayaa waxa u qaybinaysaa periodka wixii ku soo baxay oo ah 0.2 second waxay noqonaysaa marka waa 5 hertz ayay noqonaysaa marka periodka waa eber dhibic 2 second frequency-ga wuxuu noqonayaa 5 hertz ayuu noqonayaa c waxay noqonaysaa marka waxaan la diray hadana waxa soo saarta angular frequency-ga soo saar angular frequency maxaa lagu helaa marka angular frequency waxaa lagu helaa ama omega waxaa lagu helaa 2 pi laba lagu dhuftay pi oo lagu dhuftay frequency marka labadaas soo qaadanaysaa pi waxay u dhigantaa oo loo qaataa 3.14 oo qaadanaysaa waxaad ku sii dhufanaysaa frequency-ga oo ah 5 ugu dambeyn waxa ku soo baxayo 31.4 oo waxa leedahay rad per second halbeega angular frequency ama omega waa rad per second marka angular frequency qaabkaas ay ku soo saaraysaa su'aasha labaad ee chapterka oscillator motion-ka waxa lagu dhahay marka define amplitude waxaad qeexdaa amplitude max aan waxa lagu siiyay 3 dhibac ayaa lagu saxayaa su'aashaas kaligeeda amplitude maxaa ku qeexaynaa marka amplitude marka uu fara badan yahay dhowr qeexitaan ay isticmaali kartaa oo macnaha chapterka marka aad u fiirsato dhowr definition oo qaadan karto ardayga marka su'aashii markaas directive u fudud ayuu isticmaalayaa amplitude waa qotin macnaheedu waxay tahay waa inta wave-ku kor u kacayo iyo inta wave-ku uu hoos u dhacayo amplitude waxaan qeexaynaa amplitude is the maximum displacement waa barbax ugu badan on the either side ee labada dhinaca undisturbed or rest position barta nagaanshaha iyo undisturbed oo ah barta sare oo markaas wave uu ku soconayo intaas oo qeexaysa amplitude dhowr definition ayuu buugu qorayaa hadba mid kugu saanaya isticmaalaysaa su'aasha saddexaad ee chapterka oscillator motion-ka waxa uu dhaceysay Ali Straget Ali wuxuu kala jiiday spring moolo ayuu kala jiiday distance masaafo oo 20 cm ayuu kala jiiday and held kadibna waa uu qabtay marka su'aasha laga rabo waxay tahay what is waa maxay the potential energy kayd faraq kayd danabeedka andho waxa loo yaqaano tamarkeedka soo saar storage ee lagu keydiyay in the spring moolada take waxa uu qaadataa marka spring constant ama key waxa uu qaadataa lagu dhahay marka 200 newton per meter ayaad u qaadanaysaa marka waxaan haysanaa 20 cm oo distance-gii oo markaas nalisi ama displacement iyo waxaan haysanaa spring constant ama force constant oo ah 200 oo newton per meter ayaa lagu siiyay marka potential energy aan la diray maxaa lagu helaa marka potential energy guud ahaan marka qaacidadaas isticmaalaysaa potential energy waxa lagu helaa half oo lagu dhuftay spring constant oo lagu dhuftay displacement oo la isku wargareeyay waxa soo isticmaalaysaa marka ugu horeeyo waa in ardaygu uu soo bedelo 20 cm waxa uu soo bedelaysaa meter si hadhowdii meterka iyo meterka ay isku la baxaan waxa ku soo waxa leenahay marka 20 cm ardaygu wuxuu soo bedelaa meter si macnaha hadhowdii uu kugu soo baxo newton meter waxay la mid tahay joule marka 20 cm waxaan u soo bedelaynaa meter waxaa leenahay marka waxa soo baxayso eber dhibic 2 oo meter ayaa inoo soo baxayso kadib waxaan isticmaaleynaa qaacidada potential energy waxaa lagu helaa xal loo qaybsho labaa soo qaadanaysaa oo lagu dhuftay keyda oo nala siiyay waxaan haysanaa 200 newton per meter waxaan ku dhufanaynaa x-ka ama displacement-ga oo nala siiyay eber dhibic 2 x-ka marka wuxuu wataa square ka saaraysaa hal loos dhigay labada soo qaadanaysaa 200 sideed u soo guuri eber dhibic 2 square gareynaysa waxa inoo soo baxaysa eber dhibic 4 kadib hadana sareeya isku wada dhufanaysa waxa inoo soo baxaysa 8 kadib laba u qaybinaysa ugu dambeyn natiijada potential energy wuxuu noqonayaa 4 halbeeg potential energy waa joule marka Ali moolada wuxuu kala jiiday masaafo dhan 20 cm hadii spring constant ama doorsoomaha moolada uu yahay 200 newton per meter energy-ga lagu keydiyo wuxuu noqonayaa 4 joule ayuu noqonayaa adoo isticmaalaya qaacidadaasi waxaan galaynaa qaybtii labaad ee imtixaanka ayaan gudagalaynaa oo lagu saxayay 8 iyo 10 dhibcood waana chapterka refraction of light qalooxsanka ilayska ayuu qusayaa su'aalahan ina soo haya ama fooda nagu soo haya su'aasha ugu horeysa marka imtixaanka wuxuu dhaceysay number 2 define waxaad qeexdaa refraction of light waa maxay qalooxsanka ilayska dhibcahan waxa saaran 4 dhibcood maxaa la marka qalooxsanka ilayska asagana ilaa iyo 3 ilaa 4 definition ayaad u isticmaali kartaa ayaad ku qeexi kartaa refraction of light qalooxsanka ilayska marka waxaan ku qeexaynaa anaga is the change waa isbedelka ku dhaca in a direction jihada oo isbedesha of light ilayska jihadiisa oo isbedesha ama qaloocsanta when marka passing from uu dhexmarayo when medium hal dhexyaal to another iyo dhexyaal kale with different density ay cufnaantooda ay kala duwan yihiin marka macnaha refraction of light maxaan ku qeexaynaa refraction waxaan ku qeexaynaa
waa isbedelka ku yimaada laba medium labadaas medium oo macnaha leh cufnaan kala duwan intaas oo qeexaysa maxaa leedahay reflection of light was the change in direction waa bedelka ama qaloocsanka ku yimaada direction jihada uu u socdo light ilayska ayaa qaloocsamaya ama bedelmaya goorme when passing from one medium to another marka qaloocsankaas waxa keenay waxa loo yaqaan speedka ama waxa loo yaqaan directionkiisa isbedelaya directionka uu isbedelana sidoo hore u soo baranay waxa isbedelaya waxa loo yaqaan speedka xawaaraha uu isbedelaya marka reflection of light intaas ayaa ku qeexaysa su'aasha labaad ee chapter reflection of light waxa lagu dhahay when a ray of light marka a ray of light falar strikes uu ku dhaco the surface ugu ayuu ku dhacay separation oogadaas oo kala saarta two different media laba dhexyaal ama laba media ay kala duwan ayuu wuxuu ku dhacay ilayskaas raygaasi falaarta ilayska wuxuu ku dhacay qaab perpendicular ah si qoton ayuu ugu soo dhacay then hadaba it does not suffer ma dhacayo wax loo yaqaano marka laba option lagu siiyay ma reflection ama refraction marka meesha waxa laga rabaa inaad doorato ama reflection ama refraction jabtarka markaad u fiirsato waxaan hore u soo baranay sheyga hadduu tusaale uu yahay glass oo kale meesha duu glass inuu yaalo oo falaar ilays uu ku soo dhaco afwan waxay macaanaysanaa ka soo qaad glass ayaan haysanaa quraarad ama water falaarta haday si perpendicular ah si normal ah ugu soo dhacdo falaartaasi ma noqonayso refraction ma dhacayo reflection ma dhacayo wax loo yaqaano reflection ma dhacayo waxa noqonayso marka falaartaasi refraction kuma dhacayo waa ay toosaysaa marka hadii waa goormee waa markii si perpendicular ay ugu soo dhacdo marka su'aasha marka waxa lagu dhahay falaarta ilaysta hadii si perpendicular ugu soo dhacdo maxaasa aan isbedelaynin isnaadno safar any refraction ayaa leedahay marka wax qaloocsana halkaas kuma dhacayo marka hadii glass aad haysato oo si normal ah ilayska ugu soo dhaco any refraction wax refraction ama qaloocsan ku dhacayo ama ku imaanaya falaartaasi malaan su'aasha saddexaad ee su'aalihii refraction of light qaloocsan ilayska waxay u dhaceysay bilow hoos waxa inoogu sawiran ee convex lens bikaaco nooc uruurisada ah ayaa hoos inoogu sawiran hadda waxa laga rabaa su'aalaha la diray waxay tahay su'aasha page kan ayaan ka helaynaa su'aasha koowaad waxa lagu dhahay su'aasha koowaad waxa lagu dhahay complete markuu horeeyo dhamaystir complete waxa dhamaystirtaa ray diagram markuu horeeyo ray diagram iska dhamaystir micnaheedu maxay tahay image ka samee humaag ayaa sameynaysaa to locate awayso the position of image markuu horeeyo position image ka soo saaraysaa adoo isticmaalaya ray diagram iski oo aan naqiinay 2 marks laba dhibcood markaad u fiirsato marka objective marka wuxuu yaalaa 2f objective wuxuu yaalaa 2f1 objective waxa la dhigay 2f1 hadaba image kaas astaamiis muxuu noqonayaa marka u fiirsano objective wuxuu yaalaa 2f1 ayaa objective la dhigay marka waxa la rabaa marka position of image inaan soo saarno anaga marka waxaan naqiinay waxaan isticmaali jirnay laba ray ayaa markasta la isticmaalaa ray koowaad wuxuu ahaa ray parallel to the principal axis falaar barabar la ah ee principal axis ka markuu reflection uu dhacano wuxuu soo mari jiray wax loo yaqaano f ta ayuu soo mari jiray oo principal focus ka lenska bikacada dhinaca dambe falaarta labaad waxay ahayd ray passing through optical center fara ayaa waxay maraysaa optical center ka kadibna waxay ku soo laabanaysaa markuu reflection uu dhacana isla wadadeedii ay refraction toos ay ugu dhacaysaa iyadoo without any deviation iyadoo aan qaloocsamayn marka labada falaar meesha ku kulmeen ayuu image uu ku sameysmaa hadaba in meesha ayuu image-kan ku sameysmay sidaas daraadeed marka sidaas ayaad u sawiranaysaa marka marka qaabkaas ugu jawaabaysa su'aasha koowaad waa kana asagoo ray diagrams ahaana inta ayaan ku soo muujiyay su'aasha labaad marka waxa laga rabaa what will be muxuu noqonayaa marka the characteristics astaamaha waxa sheegta image ka sameysmay ayaa sameeyay marka aad ray diagrams ka oo aad soo dhamaystirto aad ka soo shaqeyso kadib su'aasha xigta lagu weydiiyo waxay tahay astaamaha properties ka ama characteristics image ka sheeg image kaas wuxuu yeelanayaa number 2 real image ayuu noqonayaa waa humaag dhab ah ayuu noqonayaa humaag dhab ah ayuu noqonayaa maadaama falaarihii rasmiga ahaa ee ka soo baxay objectiga ay kulmeen mar hadii labada falaarood oo objectiga madaxiis ka soo baxay kulmeen image kaas waxa loo yaqaanaa real image ayaa loo yaqaanaa hadaysan labada falaarood aysan kulmeenna oo si falaarihi ay u soo baxaan qaab imaginary ah waxa loo yaqaanaa virtual image hadaba waa image kaas waa real ayaad leedahay waana inverted maxaa loo jeedaa waa qaliban waxa loo jeedaa objectiga qaybtiisa hoose waxay aadaan kor
qaybtiisa sarana waxay soo aadayaan hoos hadaba image-kaas wuxuu noqday same size micnaheedu waxay tahay waa isku cabir markaad u fiirsato objectiga iyo image-ka height-kooda ama jooga markaad u fiirsato ama distance-ga waxay isku jiraan same size isku cabir ay isku jiraan as the objectiga image wuxuu ka sameysmay wax loo yaqaan 2f2 image wuxuu dhacaa at 2f2 ama wuxuu dhacayaa 2f micnaheedu waxay tahay same size waa on the other side of the lens ee bikacada dhinaceeda kale marka u soo laabato waa kana hadaa u fiirsato objective waa kana objective falaarta markuu horeeyo qaabkaas ay kor ay u jeeday laakiin hadda waxay soo maraysaa mar hadii image ku sameeyo falaarta hoos ay soo maraysaa marka labada falaarood rasmi halkaas ay ku kulmeen image ku xaleena waa real haduu mar real u yahay waa inverted image ku noqonaya same size waa isku cabir micnaheedu waxay tahay waa wuxuu cabir leeyahay ama wuxuu height-ka jooga objective image-ka waa same objectives wuxuu ku sameysmay 2f2 ama center of curvature-ka ama C2 ayuu ku sameysmay hadba ardayga sidoo uu fahmi karo lens-ka dhinaceeda kale ayuu image-ka ayuu ku sameysmaya su'aasha saddexaad ama qaybta saddexaad isla su'aasha ayaan ku dhex jirnaa oo mid hadda ay convex lens-ta what will be muxuu noqonayaa marka the use of this case kan maxaa loo isticmaalaa mar haduu objectiga uu ku sameysmo same size duu yahay maxaa loo isticmaalaa waxa loo isticmaalaa wax loo yaqaano telescope ama terrestrial telescope-ka ayaa loo isticmaalaa ama waxa dhigi kartaa wax loo yaqaano photocopying machine ayaa loo isticmaalaa ayaad leedahay ama wax loo yaqaano telescope ama terrestrial telescope ayaa loo isticmaalaa su'aasha afraad ee chapter reflection of light qalooxsan galeeska waxay noqonaysaa Somali Optic Company shirkad ka shaqeysa araga ayaa produce waxay soo saartay two lenses laba bikaaco ay soo saartay A iyo B bikaac lens A iyo lens B ay soo saartaa which have taasoo leh focal length hadii dherer kulmiska bikaacada uu yahay midna waa 50 cm midna waxa lagu siimeeyay 20 cm respectively oo si xishmad leh mar hadaad respectively maqasho waxa laga rabaa su'aasha sida u soo kala horeyso inaad u kala siiso ayaa laga rabaa ardayow hadaba su'aasha laga rabo waxay tahay number A what is the nature of lens A and lens B marka waxa laga rabaa nature-ka waxa sheegtaa dabeecadda ama dabiiciga lens-ka koowaad nature-kiisa sheeg lens B nature-kiisa sheeg marka nature-ka lens-ka waxay ku xiran tahay hadba waxa lagu siiyay focal length ama power-ka aad fiirinaysaa haday positive ay tahay focal length waxa leenahay lens-kaasi nature-kiisa waa convex lens haday tahay negative-na waxa leenahay image lens-kaasi waa concave lens hore ayaan u soo sheegnay haday lens-ka ay tahay positive waxa loo yaqaan lens A hadda waxay noqonaysaa convex lens y lens B waxay noqonaysaa wax loo yaqaan concave lens ay noqonaysaa adoo ka raacayo xagga sumadaha ama calaamadaha ayaad ka raacaysaa B marka qaybta labaad isla su'aasha waxa lagu dhahay what is the power of lens A waxa soo saartaa awooda lens-ka koowaad and lens B iyo awooda lens-ka labaad marka power of lens waxa lagu leeyahay qaacid ahaan waxay leedahay hal loo qaybsho focal length marka hal oo constant ay waxa u qaybinaysaa focal length marka u fiirso focal length waxa lagu siiyay 50 cm oo positive ayuu ahaa centimeter marka meter soo bedelay waxa ku soo baxaysa 0.5 hal ayaad waxa u qaybinaysaa 0.5 waxay noqonaysaa marka wax loo yaqaano plus oo waxa leedahay 2d aa leedahay ereyga d marka wuxuu u taagan yahay xarafkaasi waa diopter waana halbeega power of lens convex lens marka sidaas aad ku xalinaysaa waxa leedahay hadana su'aasha koowaad marka waa xalinay waxa u maahan hadana lens B marka waxaan ku leenahay hadana isla qaacidada isticmaalay power waxa ku helaysaa hal loo qaybsho focal length hala waxa u qaybinaysaa focal length-ka muraayada lens B wuxuu ahaa 20 cm asagana waxa uu soo bedelay meter alaashan power of lens markasta waxa la rabaa focal length-keeda inuu ahaado meter marka 20 cm waxaad u qaybinaysaa 100 waxa ku soo baxayso 0.2 hadaba hadii hal loo qaybiyo 0.2 waxa soo baxayso 5d ayaa leenahay ama diopter marka calaamadda intee ka imaaday calaamaddu waxay ka imaaday tan koowaad waxay ahayd convex lens haday convex lens tahay waxa la siinaa plus positive tan labaadna waxa wadato negative maadaama ay tahay concave lens sidaas ayaad calaamadaha aad u kala saaraysaa si marka isla su'aasha socoto waxa loo dhahay marka what is the power waa maxay awooda of combination isu geynta marka la isku geeyo lens A iyo lens B hadii labada muraayad la isku daro power of combination gooda muxuu noqonayaa hadii together are held close together hadii la isku keeno asana waa laba dhibcood
marka chapter marka dib u laabato power of combination waxa lagu helay b1 plus b2 ayaa lagu helaa marka power 1 waxa inoo soo baxay plus 2 power 2 waxa inoo soo baxay -5 hada marka plus kana minus kan ku dhacayo wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano minus ayaa inoo soo baxayso marka waa plus 2 oo lagu dhuftay -5 marka waxa soo baxayo 5 iyo waxaad kala jaraysaa iyo 5 ka waxa inoo soo baxay 3 lambarka weyn calaamadii siinaysa 5 ka ayaa weyn hada 5 marka wuxuu wataa minus marka waxa leenahay -3d marka power of lens wuxuu noqonayaa -3d ayuu noqonayaa intaas marka waxaan kaga gudbeynaa qaybtii labaad ee reflection of light waxaan galeynaa su'aalihii saddexaad ee chapter imtixaanka ayaan guda galeynaa su'aalaha saddexaad marka waxay yihiin waa wave motion waxay qusayaan chapterka wave ayay qusayaan socodka hirarka asagana waxa lagu saxayaa guud ahaan 9 dhibcood ayaa lagu saxayaa su'aashkood marka waxa lagu dhahay state waxa sheegtaa su'aashkood marka waxa ku dhahay state waxa sheegtaa types of waves noocyada hirarka sheeg ayaa lagu dhahay waxa lagu sii waxa lagu saxaa marka 4 dhibcood types of waves marka waxa ku soo koobi kartaa waves laba loo qeybiyaa waa mechanical waves iyo waxa loo yaqaano electromagnetic waves oo ah hirarka walxeed iyo electromagnetic waves oo loo yaqaan hirarka birlabdanabeedka ayaa loo yaqaana marka labaas ayaad ku soo koobi kartaa faahfaahin dheeraadna oo ku dari kartaa si aad maxalliga dhibco kale oo dheeraad aad u yeeshana waa sii qeexi kartaa mechanical waves waxa la waves which propagate through material medium waa waveyada u baahan medium dhexyaal electromagnetic waves waa medium waa kuwa aan u baahanin mediumka laakiin guud ahaan su'aasha waxa lagu dhahay labadooda sheeg waa sheegaysa waxa leedahay mechanical waves iyo electromagnetic waves su'aasha labaad marka isla qeybii wave motion ayaan ku dhex jirnaa radio muqdisho idaacada radio muqdisho andho radio muqdisho ayaa produces waves hirarka mawjad uu ku shaqeeyo frequency-giisa waa 90 oo waxa lagu siiyay megahertz and wavelength irbaacan uu yahay 3.33 mitir calculate waxa soo xisaabaysa ama soo saarta speed waa may xawaara of waves marka radio muqdisho wuxuu ku shaqeeyaa frequency ama rakaadkiisu waa 90 megahertz ayuu ku shaqeeyaa halka mawjadahiisna uu yahay 3.33 mitir hada speed ka laga rabo xabaaraha ayaa soo saaraysa wave-ka speed maxaa lagu heli jiray arday speed waxa lagu helaa wavelength ayaa leedahay lagu dhufto frequency qaacidada waxa isticmaalaysa speed oo v waxa lagu helaa wavelength oo lagu dhuftay frequency equation kaas isticmaalaysa marka wavelength waxa lagu siiyay 3.33 mitir laakiin frequency markaad u fiirsato waxa haystaa 90 oo megahertz waay marka waxa sameeyay megahertz kaas waxa soo bedelaysa hertz mega waxay u dhigantaa marka 10 power 6 marka hadaa maqasho mega micnaheedu waa 10 power 6 waay oo micnaheedu ay tahay 1 milyan ayaa 1 iyo 6 ibar ay noqonaysaa marka mar alaal tirada lagu siiyo ayaad waxaad ku darsanaysaa marka times 10 power waxa leedahay 6 marka 90 waxa ku dareynaa 6 ibar ama waxa leedahay 90 milyan ayaa noo soo baxayso marka su'aalaha kale waa su'aalaha la rabo ardayga inuu aad isaga fiiriyo imtixaanada badanaa megahertz iyo kilohertz iyo gigahertz ay badan ay ku imaadaan marka ardayga waa inuu yaqaanaa megahertz waa mega waa max qiimihiisa giga waa max qiimihiisa kilo waa max qiimihiisa inuu kala baxsanaado marka mega daa maqasho meel allaala qaacido walba isticmaalayso waxaad ku isticmaalaysaa waa 10 power 6 ayaa isticmaalaysaa marka waxay noqonaysaa labadooda isku dhufanaa marka megahertz kaasaan soo bedelaa 90 waxaan leeyahay marka times 10 power 6 ay soo baxayso marka isku dhufta guud ahaan waxay noo soo baxayso tiradaas ay noo soo baxayso marka waxaan ka dhigaynaa wax loo yaqaano centimeter notation oo bedelayna guud ahaan marka speedku wuxuu noqonayaa 3 times 10 marka isku dhufano 3 times 10 power 8 meter per second ayuu noqonayaa wali qaybihii waxaan ku dhex jirnaa chapterkii wave motion su'aalihii saddexaad waxaan gudbaynaa su'aasha saddexaad maxay leedahay su'aasha saddexaad waxayna leedahay the frequency rakaadka of a wave rakaadka wavekiisa ayaa wuxuu noqday triple saddex laab ayuu noqday and this wavelength irbaacan wuxuu noqday double laba laab ayuu noqday what happened to the speed maxaa ku dhacay speedka xawaaraha maxaa ku dhacay waxa sameynaysa marka frequency wuxuu noqday saddex laab wavelength kan wuxuu noqday laba laab marka waxa sameynaysa isla qaacidadii waxa isticmaalaysa velocity adigoo frequency-ga raacinay 3 wavelength kana siinay labo maadaama uu yahay triple laba laab frequency-ga wavelength kana frequency-ga waxa leeyahay saddex laab wavelength kana laba laab hadaba speed-ku wuxuu noqonayaa asagana kama yareysanayo wuxuu noqonayaa 6 laabka speed-ku wuxuu noqonayaa 6 laabka ayuu noqonayaa guud ahaan halkaas waxaan kaga bixinaa marka su'aalihii wave motion ka ee saarnaa 9 dhibcood waxaan u gudbaynaa questions 4 su'aalihii afraad oo ah sound waves mawjadaha jabaqda ama hirarka jabaqda
asagana waa 10 dhibcood su'aasha kood marka waxay ku dhahday differentiate waxa kala saartaa infrasonic sound differentiate kala saar between infrasonic sound iyo ultrasonic sound labadaas arabna aan kala saarno marka maxaa leenahay marka aad u fiirsato chapterka sound waves qaybtiisa uses waxa loo yaqaan farqiga u dhaxeeya frequency-ga saddex frequency oo sonic vibration iyo ultrasonic vibration iyo infrasonic vibration ka ayaa su'aashan ay qusaysaa marka infrasonic sound-iga ardayda waxay ahaayeen waa codka ka yar 20 hertz ayaa waxa loo yaqaanaa infrasonic sound hadaba waxa leedahay infrasonic sound waxa la are sounds of frequency which is less than ama wixii ka yar 20 hertz ayaa waxa loo yaqaanaa infrasonic sound halka ultrasonic sound-igana uu yahay the sounds waa codadka frequency rakaadkooda higher than ama greater than oo ka sareeya 20 hertz waxa loo yaqaanaa ultrasonic sound ayaa loo yaqaanaa su'aasha labaad marka isla qayb sound waves waxay tahay describe sound as a longitudinal wave sound-iga waxaad u qeexdaa longitudinal wave ahaan u qeex ayaa lagu dhahay ama ku sheeg maxaa leenahay marka sound علينا longitudinal sound is a longitudinal wave sound-iga waa hirarka waxa loo yaqaan dheeraran taasoo by vibrating objects ee grid ku sameeyay sida waxyaabo loud speaker sameeyada iyo qalabka biyaanada iyo human focal cord ku soo saaro marka intaas aad ku qeexaysaa hadii loo dhaho sound-iga qeex iyo sound longitudinal wave qeex hadii loo laba qaab u kala sheegaysaa marka sound waxa laga rabaa longitudinal wave aan u sheegaa lagu dhahay su'aasha saddexaad waxa marka state properties of sound waxa sheegta astaamaha sound waves ka sheeg marka jawaab waxay noqonaysaa properties of sound waves waa saddex waa intensity frequency iyo waxa loo yaqaan harmonic content-iska saddexdood marka waxay leeyihiin saddex kala astaamo ayaa hoos imaanaya oo loudness ama amplitude iyo pitch-ka iyo quality-ga waayahay waxaan u gudbeynaa sound lagu dhaadane meelii banaan buuxu waa midaan oo kale sound ayaa travel sound wuxuu dhex maraa slowest wuxuu ku gaabiyaa sound marka wuxuu ku gaabiyaa leedahay gas halkaas marka waxa galayso gas ayuu ku gaabiyaa faster in sound wuxuu ku dheereeyaa inta waxa galayso liquid dareeraha waxyaabaha biyo uu ku faster ayuu ku yahay wuxuu ka dheereeyaa gaska and fastest in waxaan ugu dheereeyaa waxa loo yaqaan solid-iska marka sound waxa aad u gudbiyay best transmitter waxa solid-is waay marka solid-ka ugu dheereeyaa waxa ku xiga liquid-ka faster ah waxa ugu hooseeya waxa loo yaqaan gaskiska ayaa ugu hooseeya saddexdaas ayuu dhex maraa marka mid uu kala duwan su'aasha kale waxa lagu dhahay marka amin ambulance baawarta ee ambulance-ka nooca amin ambulance ayaa moves waxay ku dhaqaaqday speed xabaara 35 mitir per second ayay ku dhaqaaqday ita seerin hoonka ama seeriga emitting wuxuu soo daayay sound cod frequency-giisu oo 600 hertz marka su'aasha marka waxay tahay amin ambulance di ambulance-ka speed-kiisu uu ahaa 35 mitir per second rakaadka uu yahay 600 hertz su'aasha marka waxay tahay what sound waa ma codka isheer uu maqlaayo bay xasan ma codka uu maqlaayo standing hadda xasan uu taagan yahay Bakari station xarunta postage-da Bakari haduu taagan yahay waa ma codka uu maqlaayo ayaa laga rabaa marka as the ambulance-ka approaches soo raadinaysa markii ambulance ay ku soo dhawaanayso iyo B or series markii ambulance ay ka sii tagaysa marka su'aasha marka waxay tahay waa Doppler effect isticmaalaysa qaacidada ahayn marka waxa uu dhahay baawur nooc loo yaqaan amin ambulance ayaa speed wuxuu ku socdaa 35 mitir per second rakaadkiisuna waa 600 hertz waa maxay marka codku uu maqlaayo xasan oo taagan isgooska Bakara markii ambulance ay ku soo dhawaanayso iyo markay ka sii tagto speed-ka xabaarahan codkan waxa uu qaadataa habada inay tahay 345 mitir per second marka waxa isticmaalaysa qaacidada ahayd Doppler effect waliba source moving source moving approaches markuu gaariga oo qofku ku soo dhawaanayo xasan waxa lagu helaa marka frequency-ga gaariga aad waxaad ku dhufanaysaa speed-ka xabaaraha habada waxa uu qaybanaysaa xabaaraha habada oo laga jaray source moving xabaaraha uu ku socday gaariga ambulance-ka waxa leedahay marka 600 hertz waxa ku dhufanaysaa 345 waxa uu qaybanaysaa 345 oo laga jaray 35 marka labada la isku dhufto waxa soo baxayso intaas ay noo soo baxayso waxa soo baxayso 200 waxaana soo baxaysa 20 marka labadaas isku dhufato waxay noo soo baxaysa 207,000 ayaa noo soo baxaysa waxaan qaybinaynaa 310 oo labada marka kala jarno guud ahaan marka waxay noqonaysaa 667 ama 668 hertz marka xasan marka wuxuu maqlayaa hoonka ama codka uu maqlayo xasan markuu ambulance uu ku soo dhawiyaa waa 667 isla qaacidada oo kala isticmaalaysa adigoo kala gadinaya halkii minus-ka waxa ka dhigaysaa plus ayaad isticmaalaysaa waxa leedahay isla qaacidada isticmaal labadooda meeshii ka jirta kaliya waxaad ka dhigaysaa ku dar
guud ahaan marka labadan isku qeybin waxay noo soo baxayso 544 marka ambalaska markuu xasan uu kusoo dhawaanayo waa 667 hertz waa micnaheedu maxay tahay frequency-ga ayaa badanay markuu ambalas uu kasii tagana frequency-ga wuu yaraanayaa wuxuu noqonayaa 544 ayuu noqonayaa su'aali u dambeeyay aan isla soo gaarnay marka waa 10 dhibcood iyo chapterka dispersion of light firdhiska ama kala yaaca ilayska su'aashkood marka waxa lagu dhahay differentiate between waxaad kala saartaa ardayow primary colors and secondary color ka saara marka maxaa la primary color iyo secondary color qeexitaankan maxaa leena marka primary color waxaan qeexaynaa primary colors waxa la lahaa waa red iyo green iyo blue waa saddexdaas waxa lagu yaqaanaa primary color qeexitaanka marka waxa leena waa are the colors waa midabada which can be obtained aan laga helin by mixing two or more colors waa kalarada laga helo waxyaabo aan la isku darin marka waa red iyo green iyo blue saddexdaas waxa lagu yaqaanaa primary colors secondary colors wuxuu noqonayaa marka are the colors waa midabada obtained laga helo by mixing marka la isku daro two primary color laba primary color la isku daray ayaa waxa lagu helaa waxa lagu yaqaanaa secondary color tusaale hadii red plus green oo kale waxa inoo soo baxaa yellow marka yellowga ayaa waxa lagu yaqaanaa secondary color red iyo green ka wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano primary color ayuu noqonayaa marka intaas ay kala saaraysaa primary colors waa red iyo green iyo blue secondary colors waa yellow iyo cyan iyo magenta su'aasha xigta ee labaad ee chapter dispersion of light waxay noqonaysaa Halima ayaa haysa green filter Halima waxay haystaa filter midabkiisu yahay green and shines waxay ku soo ifisay yellow light ilays jaala ayay ku soo ifisay hada what color it will transmit waxa sheegtaa midabka gudbaya marka aad u fiirsato waa color filterski ahaayeen waa mowduuc ahaa waxa marka Halima marka waxay haystaa green color midabka filterka haysta waa green waxay ku soo ifisay waxay tahay waxay ku soo ifisay yellow jaala ayay ku soo ifisay hada midab gudbaya laga rabo marka ardayo marka filterka haysto waa ando afwan filterka haysto wuxuu noqonayaa filterka haysto waa green ayay haysataa ayadana light ay ku soo ifisana waa yellow marka yellow marka wuxuu ka kooban yahay waa green waa red plus green ayuu ka kooban yahay red plus green hadaba waxa gudbaayo oo kaliya green ayaa gudbaayo oo maxaa redka waa mesh ayuu ku haraya ileen filteriska waxay ahaayeen waa midabka leh ee filterka iyo midabka isla oo kaliya ayaa gudbaayo midabka kale waxa waa sidiis ayuu lagu celinayaa marka filterka ay haysto waa green midabka gudbaayo marka wuxuu noqdaa isla greenka ayaa gudbaayo marka soo ku noqday marka greenka wuxuu ku noqday yellowga iftiinka light ka haysto waa yellow marka yellow wuxuu ka kooban yahay red plus green hadaba greenka gudbaayo redka micnaheedu waxay tahay waa la celinayaa alaashan isma laha filterka waa green midabkana waa red waa marka redka waa la celinayaa wax gudbaayo waa greenka maadaama filterska qaacidadu ay yihiin kaliya wixii markaasi midab isla ay gudbaayo inta kale waa la celinayaa su'aasha u dambaysa marka dhamaan guud ahaan imtixaanka waxay noqonaysaa waxa lagu dhahay use isticmaal lagu dhahay marka use isticmaal the following words ereyada soo socda isticmaal to complete the gaps meelaha banaan saad ugu buuxiso waxaan la siiyay red violet ultraviolet infrared rays iyo gamma rays shantaas aan la siiyay meelaha banaan rabnaa inaan ku buuxino marka waxa lagu dhahay su'aasha which color of white light midabkee kuwa cadaanka has least deviation waxa sheegtaa ya uu qalooxsan yar markii chapterka waan aragnay markii white light ka midabka oo heroic beef red ki iyo orange iyo yellow iyo green ki blue indigo violet markii lagu ofiyo ama lagu soo daayo glass prism-ka waxay sameeyaan waxa loo yaqaan reflection way qalooxsamaan hadaba kan qalooxsama oo qalooxsan yar ayaa sheegayna waxa uu qalooxsan yar waa redka gaduudka ayaa uu qalooxsan yar maadaama speedkiisa uu yar yahay maxaa leenahay maadaama speedkiisa uu badan yahay asaga ayaa uu qalooxsan yaraanayo waana asaga ayaan ugu wavelength dheer maadaama ugu wavelength dheer yahayna waxaa leenahay asaga ayaa uu qalooxsan yaraanayo marka halkaas waxaa galaya red ayaa noqonaya halkaan wuxuu noqonayaa red gaduudka ayaa uu qalooxsamaya and B it is used to detect forgery of checks or important documents kee loo isticmaalaa waxyaabaha lagu jeeggareeyo checking ama lagu hubiyo ama important documents documentyada muhiimka ah maxaa loo isticmaalaa waxay tahay ultraviolet ayaa loo isticmaalaa halkaas marka waxay noqonaysaa ultraviolet ayaa galaayo oo midda saddexaad C waxa lagu marka it produced heating effect marka heating effect heating effect marka waxa soo saaray waxa loo yaqaan infrared marka waa maxay temperature-ka
thermometerka wax alaala wixii heat ama kul soo saara waxay soo daayaan wax loo yaqaan infrared radiation ay soo daayaan su'aasha ugu dambaysa waxa lagu dhahay marka a color which has the maximum reflection qalocsan ugu badan keeba ah markii dispersion of light uu dhacayo glass prism la dhax dhigo roig beef midabada loo yaqaanay kee ugu qalocsan badan waxa uu qalocsan badan wax loo yaqaano violet ka ayaa uu qalocsamay marka tan koowaad waxa galaa red mid labaad ultraviolet tan saddexaad waa infrared radiation kun dambeena waa ultraviolet guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa imtixaankii 2020 2021 insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad wax badan oo aad ka faa'iideen oo aadna insha Allah taala aad u share gareyn doonto arday walbo fonfora oo aad iyo aad u anfacayo imtixaanaadka insha Allah taala waan sii wadi doonaa imtixaanaadka xiga sida 2019 2020 ka imtixaankii 2018 2017 insha Allah taala intii markaas aan ka gaaro ayaan ardayda u soo gudbin doonaa insha Allah intaan videos kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.